Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan, galab wanaagsan ama habeen wanaagsan, hadba waqtiga ay kuu tahay daawada. Maanta waxa aynu ka hadli doonaa 5 caado oo noloshaada saameyn weyn ku yeelan kara haddii aadan sida ugu dhaqsaha badan leh iska joojin. Caadada koowaad waxa weeye dib u dhigashada wax kasta oo aad doonaysid inaad qabatid. Daawada ma dhacdaa in mararka qaar aad waqti badan ku bixisid ka fikiridda inaad qabatid hawl. Ka fikiritaankaas oo qaataba waqti ka badan intii aad hawshaasi kugu qaadan lahayd inaad qabatid. Tusaale haddii aan soo qaadano, waxaa laga yaabaa in hawl bishii hore amaba sanado ka hor aad doonaysay inaad qabatid aanay ilaa hadda kuu suurtagelin, sababtuna ay tahay dib u dhigitaankaas aad markasta dib u dhigaysid. Hawsha aad qaban lahayd ama aad markasta dib u dhigaysid waxa ay dhici kartaa in ay tahay tii noloshaada bedeli lahayd ama riyooyinkaaga ku rumayn lahayd. Laakiin dhibaatada kaliya meesha jirta ee taallaa waxa weeye in aadan ku dhicitaan lahayn oo aad markasta dib u dhigaysid. Waxaa laga yaabaa in hawshan aad maalmo yar ama bilo yar gudahood ay kugu qaadan lahayd dhammaystirkeeda. Waa haddii aad ku dhici lahayd oo aadan sanadba sanadka dambe bisha kasii dambaysa aadan dib u dhigi lahayn. Waxaa laga yaabaa in hawl aad sanadkii hore doonaysay inaad qabatid oo sanadkii marka uu bilaabmay aad ku riyoonaysay inaad sanadka dhammaysatid oo aadan ilaa hadda qabanood ka qoomaysid sababtii aadan qaban. Dib u dhigitaankaas aad hawl kasta oo ku muhiima aad dib u dhigaysid waxaad ogaataa in ay saameyn weyn ku yeelan doonto oo ay kaa ilaalin doonto inaad gaarto riyooyinkaaga iyo hadafyadaada waaweyn ee nolosha. Xataa al'aan haddii ay ku yaalaan hawlo ama mashruucyo aad doonaysay inaad qabatid, haba yaraadaan ama haba weynaadaan, maanta bilow. Khasab maaha hawsha in aad wada qabatid waqti yar gudaheed, laakiin waxaa muhiim ah in aad bilowdid. Qodobka labaad ayaa ah isbarbardhigitaanka dadka kale. Isbarbardhigidda aad markasta dadka kale isbarbardhigaysid xanuun qalbiyeed mooyee runtii wax faa'iido oo ay leedahay ma jirto. Qof nolosha meel fiican ka gaadhay haddii tusaale ahaan oo kale aad social media aad ku aragtid in aad dhiirigelin ka qaado waa wax fiican oo wax dhiba haba yaraatee kuma jirto. Laakiin dhibaatada waxay imanaysaa markaad adiga iyo qofka aad isbarbardhigtid oo aad ka xumaatid guusha uu gaadhay. Qof kasta waxa uu helayo waa inaad ogsoonaataa in xagga Allaha ka yimaadaan, Allahna uu qoray. Marka inta aad waqti badan ku isticmaali lahayd isbarbardhigga aad isbarbardhigaysid dadka kale, waxaa ka muhiimsan in aad dadaashid. Meel kasta oo aad doonaysid inaad nolosha ka gaadhidna waxa kaliya ee kaa xiga waxa weeye adiga iyo dadaalkaaga. Haddii isbarbardhigga aad dadka kale isla barbardhigaysid uu aad u bato, waxaa marka dambe dhici doonta in macal guulahaaga aad nolosha ka gaadhay ku dhadhami waayaan oo noloshaba kuu qanci weydo. Sababtoo ah guulaha dadka kale aad isbarbardhigaysid ee aad arkaysid ayaa adiga kula weyn oo waxaad dareemaysaa in guulahaagu ay aad u yar yihiin. Haddii ay jiraan dad aad taqaanid amaba social media ahaatee ama aad laf u taqaanid, ku farxa oo hambaliya si kal iyo laab ah, adiguna guulahaaga nololeed iyo aakhiraba way ku rumoobi doonaan insha Allah. Qodobka saddexaad, ka walwalidda waxa ay dadka kale ka aaminsan yihiin. Ka walwalidda waxa ay dadka kale ka aaminsan yihiin markaan ku leeyahay ulama jeedo in intaad maanta isqaawisid aad suuqa dhex marto aad hadhowtid dadka kale waxba igama gelin waxay iga aaminsan yihiin. Taas ma sheegayo, taas waa khalad. Laakiin waxaan ula jeedaa in biqitaanka waxa dadka kale ka aaminsan yihiin ay gebi ahaanba noloshaada u istaagto. Tusaale yar haddii aan soo qaato, waxaa laga yaabaa in aad doonayso inaad bilowdid mashruuc. Waxay noqon kartaa business amaba iska dhow waxaad doonaysaa in YouTube kanaal aad samaysatid. Laakiin sababta kaliya ee aad arrintaa ugu dhici kari ama kaa cabsiinaysaa ay tahay ka biqitaanka waxa dadka kale ka aaminayaan ama ay kaa sheegi doonaan. Laakiin waxa aad ogaataa in fikradaha dadka kale kaa qabaan aanay haba yaraatee adiga cid aad tahay iyo qofkaad tahay waxba ka bedeleen. Ogsoonow markastana adduunkan uma joogtid inaad u noolaatid qof kale oo aan qiimo kugu fadhin dartii. Haddii ay jirto arrin aad maskaxda ku haysid, ku dhaqaaq. Xataa al'aan ku dhaqaaq. Dadka maanta wax kaa sheegaa berito sida aad waxa u samaysay ayay ku weydiin doonaan. Qodobka afraad ayaa ah ku xidhnaanshaha dadka xunxun. Xigasho ayaa tirahdaa eeg 5taada saaxiib ee kuugu dhow. 5taas saaxiib waa kuwa aad tahay. Haddii aadan jeclaan qofka aad tahay, markaa waad ogtahay waxa aad tahay in aad samayso. Taasoo micnaheedu ay tahay haddii aadan jeclaan qofka aad maantadan la joogo aad tahay oo riyooyinkaagii nololeed iyo kuwii aakhiraba ay ku seegeen asxaab xunxun dartood, waxaa kuu fiican in asxaabtaa xunxun aad kaga hadhayd
oo meeshoodii aad ku bedeshid asxaab kale oo fiican oo riyooyinka iyo sida aad u fikirsid kula fikiraya kula mid ah. Haddii aad markasta ku xidhnaatid dad aad iyo aad u negative ah, waxaad ogsoonaataa in marka dambe ay maskaxdaada bedeli doonaan oo sida ay iyagu yihiin aad noqon doontid. haddii ay jiraan dad noocan oo kale ah oo markasta aad la joogtid farxadda kaa noogaya, kaaritaanka aad iyaga iskaga hadhaa haba yaraatee wax kaaga fiican ma jiraan. markastana waxaad maskaxda ku haysaa in dadka qaar ay ku sii nagaan karaan qalbigaaga laakiin aysan ku sii nagaan doonin noloshaada. qodobka shanaad oona ah kan ugu dambeeya waxa weeye mahadnaqid la'aanta waxa uu Alle ku siiyey. waxaad ogaataa si kastoo ay ahaato duruufaha nololeed waxa uu Ilaahay ku siiyey waxyaabo aad u badan oo maalin kasta ugu mahadcelin karto. waxaan ka hadlayaa weliba waxyaabo lacagta adduunka taallo oo dhani aanay ku siin karayn. waxaasina wax kale maaha, waa caafimaad, diinteena islaamka, iyo inaad weli nooshahay oo aad hawada macaan qaadan karayso. waxaa maanta adduunka jooga dad milyaneer ah oo lacagtooda caafimaad u keeni weyday. subax kasta oo aad soo kacdid waxaa muhiim ah inaad Allah mahadnaqdid, sababtoo ah waxa aad Ilaahay fursad kuu siiyey subaxda iyada ah waqtigaad isaga ku caabudid, riyooyinkaaga nololeedna aad ku rumaysid. faa'iidada kale ee mahadnaqidda Allah inaad mahadnaqdid ay leedahay waxaa weeye in mahadnaqitaanka Allah markasta mahadnaqaysid ay kaa caawinayso in aadan markasta ku fikirin waxa aadan haysan ee aad laakiin ku fikirtid waxyaabaha badan ee Ilaahay ku siiyey. taasina waxay sababaysaa in aad markasta faraxsanaatid. daawada, haddii fiidiyogan uu ku qanciyey, fiidiyoyo badan oo noocan oo kalena aad doonaysid, waxa aanu kaa codsanaynaa in aad nagu soo biirtid like-ta iyo subscribe-kana aadan naga ilaawin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.